sheeko xariira beri hore waxaa jiri jiray laba bisadood oo walaalo ah. Labadaa bisadood mar walba waxbay isku qabsan jireen. Maalin maalmaha ka mid ah labadii bisadood waxay heleen cad. Sidii caadadu ahayd labadii bisadood cadkii way isku qabsadeen. Aniga ayaa hor helay, aniga ayaa hor arkay, anaa kaa hor qaatay, maya anaa qaatay. Sidii bay maalintii oo dhan iskugu qaylinayeen. Markii dambe ayaa waxay meel ka arkeen daanyeer. Waxay ku yidhaahdeen, daanyeerow, aniga iyo walaashay kaalayoo noo kala garnaq, noo qaybi cadkan. Dabeetana wuxuu ku yidhi daanyeer, anaa idin qaybinayay, sug aan kafadiyo miisaan soo qaatay. Sidii ayuu cadkii laba meelood ugu qaybiyey daanyeerkii. Markaasuu kafadii saaray. Mid baa yara weynaaday. Markaasuu yidhi, kaa inta yara dheer aniga ayaa iskale intaan idin saaro kafada. haddana kafadiibu dubu saaray labadii cad. haddana kii kala batay. haddana kii kale intii uu ka jarayna isagaa cunay. wuxuu intana waa mashqaayadaydii. Sidii ayuu cadkii marba in uga jarayay, marba lahaa tan intaasaa dheer, ilaa uu cadkii isagu wada laastay. cadkii markuu dhammeeyey ayay arkeen labadii bisadood inuu khiyaameeyey daanyeerku. Markaasay yidhaahdeen, daanyeerow, waadna khiyaamaysay. daanyeerkiina intuu aad u qoslay ayuu yidhi, idinka ayaa ii dhiibtay, aniga maxaa iga galay geedkaygaas ka koro. labadii bisadood aad ayay u murugoodeen. waxaana yidhaahdeen, maalin dambe waxba isku qabsan mayno. dhibaatadaas ayuu leeyahay isqabsigu. wixii aynu helnana si isleeg baynu qaybsanaynaa. sidaas ayay sheekadii ku dhammaatay carruurey. Subscribe